ay Djibouti maadaama Djibouti ka mid noqotay cadawgeena fadhiirka waxaan leenahay ninka diiday sinaantiisa adiguna day sareentiisa laga bilaabo saacada anigoo ku hadlay afka mulkiilaha hotelka Bidhaan Plaza waxaan go'aamiyay in laga dejiyo calankan Jamhuuriyadda Djibouti oo aan ka dhigno mid xashiishka lagu daro Jamhuuriyadda Djibouti xashiishka waxaan u isticmaali doonaa calanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka ayaan ku bedeli doonaa insha Allah hadii la yiraahdo marka insha Allah dhamaan waxaan ka codsanayaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ganacsatada ay suran yihiin meeradooda kale iyo hoteeladoodaba inay sida ugu quruxda badan la uga dejiyaan maadaama oo Djibouti noo kala dhamaaday xiriirkii iyaduna ay nagu sameysay caqabado fara badan horena aan uga filaynay Ismaaciil waxaan leenahay way noo kala dhamaatay reer Djibouti hadii ay ka dhex mudaraadi waayaan caasimada dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo ka hadli waayaan dhibaatooyinka Soomaaliland lagula kacay iyagana waxaan leenahay naartii baa idin huran oo kulay tolo waxa soo dhow xagaagiye xadku way noo kala xinaan doonaa taasina madaxweynaha waxaan leeyahay isaga go'aamada ku shaqo leh inuu xadkay naga xidho oo Jamhuuriyadda Djibouti sida aan ku kala go'no maadaama cadawgeeni labaad noqotay Soomaaliya soo raacday dalalkayna ictiraafayna waxaan laatan dhamaan